fayruskan faafay fiidmeertu ay sababtay dunidana fajacyo fulinimo fowda u saaray saadaalintii Shiinaha iyo sare ku ciisii dhaqaale sanadkan oo sida kale u jeestay waa wax la filayay iyo dulmiga ay falkiyeene coronavirus oo kasoo bilowda suuq cuntada badda ee gobolka Wuhan ee Shiinaha ayaa ilaa hadda waxa uu dhintay in ka badan qof kuwa kale isbitaalada ay jiifaan waxa xaniban gobolka cudurkan ka dilaacay Wuhan iyo magaalooyinka ka agdhow si ay u xakameeyaan faafidda cudurkan sidoo kale waxa dunida ka xaniban duulimaadyadii caalamiga ee Shiinaha taa oo yareeda dakhligii ka soo gali lahaa waxa xirmay warshada taa oo sababtay in dhaqaaliyahana badan si saadaaliyaan hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka guud ee Shiinaha dhaqaalaha labaad ee dunida ayaa la daala dhacaya xakameynta coronavirus oo si xooli ah u socota waxa xirmay shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay shirkadda Apple ee soo saarta taleefanada iPhone waxa la saadaalinayaa inay hoos u dhici doonto wax soo saarka shirkadda 10% saddexda bilood ee ugu horeysa sanadkan Shanghai oo ay ku nool yihiin in ka badan 20 milyan oo qof lehna ganacsiyo badan ayaa wax soo saarkeedu 70% warshadaha wax soo saara waxay qorsheynayaan in ay dib u bilaabayaan wax soo saarkoodii ilaa hadda dad yar ayaa helay oggolaansho inay dib u bilaabaan ganacsiyadoodii waxayna ka wardhoorayaan saraakiisha caafimaad Shiinaha ayaa qayb muhiim ah ka ah ganacsiga adduunka tan iyo markii uu dilaacay SARS 2003 waxa kobciisa ka qayb qaatay shirkado caalami ah oo dalka maalgashaday dalku wuxuu kaloo ku faanaa malaayiin macaamiil oo hodan ku iibsashada alaabta raaxada dalxiiska iyo gawaarida dhaqaalaha Shiinaha wuxuu qiyaastii ahaa 4% GDP-ga caalamka sanadkii 2003 haddana waa 16% GDP-ga caalamka falanqeeyaasha iyo baananka waxay qiyaasayaan saameynta dhaqaale ee fayraska inta badan waxay rumaysan yihiin Shiinaha inuu wajahayo xaalad dhaqaale oo gaaban marka loo eego sidii marka hore loo maleynayay midda oo laga dareemi doono adduunka oo dhan rajada laga qabo sidii u adkaa doonto saameynta ayaa si weyn u kala duwanaa doonta siday noqotaba xirfadlayaasha caafimaadka iyo dhaqaalyahanada ayaa sheegaya in xogta Shiinaha ay aan caadi ahayn la'aanta nidaamkii hore ay caqabad ku yihiin qiyaas cad kobaca guud ee Shiinaha ee kororka wax soo saarka gudaha ee rubicii koowaad ayaa hoos u dhici kara ilaa 4% sarkaal sare oo ka tirsan macadka dhaqaalaha caalamiga ee Peterson ayaa qiyaasay talaadadii taasi waxay isbarbar dhigaysaa dowladda Shiinaha oo ku qiyaastay 6% kobaca sanadlaha ka hor inta uusan fayrusku soo bixin haddii tirada kiisaska la xaqiijiyay ee cusub ee coronavirus ay sii socdaan marka cawaaqib xumada ka dhalan karta kobaca sanadlaha ah ayaa aad u yaraanaya ayuu raaciyay hadalkiisii falanqeeyaasha SNB dhanka kale waxay qiyaaseen talaadadii in fayrusku hoos u dhigi karo kobaca GDP-ga ee Shiinaha ilaa 5% sanadkii oo leh saameynta ugu badan wareegga koowaad ka hor intaanu dib u bilaabin rubaca saddexaad shirkadda Alibaba waxay ka digtay in coronavirus oo sababay dhimashada in ka badan 1300 oo qof oo Shiineys ah ay saameyn muuqata ku yeelanaysa macaamiisha iyo ganacsatada waddanka ayna dhaawici doonto kororka dakhliga ee rubaca aynu ku jirno Alibaba waa shirkaddii ugu weyn ee tiknoolajiyadda Shiinaha ee sheegtay natiijooyinka tan iyo markii cudurku soo shaac baxay bishii Janaayo waxayna sheegtay in fayrusku uu wiiqayo wax soo saarka dhaqaalaha maxaa yeelay shaqaale badan ayaa awoodi waayay inay galaan ama qabtaan shaqadoodii waxaa sidoo kale isbedelay qaab iibsashada iyadoo macaamiisha ay dib uga laabanayaan qarash gareynta oo ay ku jiraan safarada iyo maqaayada qiimaha shidaalka ayaa sare u sii kacay Khamiistii iyadoo maalgashadayaashu diiradda saareen suurtagalnimada in hoos u dhac ku yimaado saadaalinta kuwa ugu weyn ee soo saara shidaalka qiimaha joogtada wuxuu ku yimaadaa ciribta ururka wadamada dhoofinta shidaalka OPEC oo hoos u dhigaysa saadaalinta dalabka 2020 ee ku saabsaneed khasaare dhan 200 oo kun oo fuusto calaa maalin Arbacadii waxay xustay walaac ku saabsan dilaaca coronavirus ee Shiinaha oo ah soo dhoofsadaha ugu weyn shidaalka ee caalamka coronavirus allaha naga haya waxa lagu ibtilay Shiinaha oo aad u ciqaabay muslimiinta ku nool halka qaar baa xabsiyo ku jira maantana iyo ka magaalooyinkii waaweyn baa haawanaya oo dadkii inay guryaha ka soo baxaan loo diiday cabsi ay ka qabaan inuu faafo cudurkani wadamo badan ayaa muujinaya walaac ku aadan inuu ku faafo cudurkan caalamka waad ku maasantaa daawashada muuqaalkan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh